ودولة فقرية waxaan leeyahay ilaahay faqriga naga saaro kii faqriga ka saari lahaana waa anigana way xaasidayaan marka waa arinta waxa ka mas'uula wasiir bixi imaan cige sidoo kale waxa mas'uul ka ah dadkii oo qulubtoodu xumaatay dadkii oo isnacay dadkii oo waxa weeyaan jaaliyadii dibaduhu ay ku kaceen kibirkii oo dadkii ku soo noqday war dadka waa asxaan fala oo dadka u naxariista oo dadka waxay u hagaajiyeen lagu kari waayay kadibna cuno qabatayn baa dadkii lagu soo rogay waa adiga arkaya faqrigii baa meel walba ka dilaacay dadkii waa bilaa bajaaj waa bilaa shaah waa bilaa quraac waa bilaa qado waa bilaa casho waxa weey gaarkood qaajooyinka u dhimanayaan marka arrimahaas oo dhan waxa mas'uul ka shacbiga haduu wanaag iyo khayr ilaahina alla baryo arsaaqadu iyada imaanaysa ilaahu arsaaqad sitra arsaaqadu iyada imaanaysa marka waxa leeyahay waxa mas'uul ka ilaah ka cabsigii iyo cibaadadii iyo dadkii oo dhaqan wanaagsan oo hadii aanan anigu walaalkay iyo saaxiibkay iyo jaarkayga waxba tari waayo anna waxba dad soo tari maayaan marka waxtarkii baa bilaada ka yaraaday sidaa daraadeed iyagana waxa weeyaan in wax la tara la diido ha wasiir bixi waxa lagu jeedinaa dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo wasaaradda shaqada iyo abuurka shaqo abuur samayso meherada yar la furo lacagu kala socdaan waxyaabahaas oo dhan baa jira aniga waxay la tahay walaalo arrimahaas oo dhan waxa mas'uul ka ah دولة حسن الشيخ محمود وبيحي إيمان عقية رئيس وزراء حمزة هي مسؤولة ودولة فقرية waxaan leeyahay ilaahay faqriga naga saaro kii faqriga ka saari lahaana waa anigana way xaasidayaan marka way jirtaa halkan xasadkii waa ku farabatay xasadku haduu ku farabatana balad xasad ka tago balad fusuq aad balay marka balad fusuqaas in la iska aado waa haboonta xasadku haduu farabato waa la iskaga tagaa barinta soo jeedinaa qof kasto wanaag ka shaqee si adigana khayrka iyo arsaaqada rabtaa kuugu yimaado